kulankan xafladeed oo lagu maamuusay furitaanka dugsiga cusub oo loogu magac daray Sunlight Integrated Academy ayaa waxa maanta furitaanka xafladan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Ahlusunna wal Jamaaca qurba joog aqoon-yahano macallimiin dhalinyaro ardayda dugsiyada iskoolaadka waalidiinta ardayda iyo guddiga iskoolka oo ka kooban xubno isugu jira rag iyo dumar intaba Professor Hirsi Maxamed Hilowle oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalkaasi Malaysia fadhigiisuna yahay dalka Australia ayaa ka hadlay xafladii maanta waxa uu faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda iyo qiimaha waxbarashada dadka ay u leedahay waxbarashada laga hadlayo waxa laga hadlaa saddex waxyaabood oo tacliinta iyo laba kaleeto oo taariikh saddexda ugu horeysa waxa weeye manhajka macallinka يا أرضي صدق هاس حكومة بي وحبرشة الله منهج كيفية وقاف وحبرشة سيستم كإيا نظام وحبرشة ميسي يالا إلا الراعي معلنك هوا تقانا وقف وحديها أرضي وقف وحبرشة صدق هذا حكومة بأساس أهو حبرشة هذا صدق هذا رسيل ومعلنك المشاعر رسيل أرضي ينصوح قراع وصوصين درنا الوسوك للبوغنا وصوصين nabadgelyadii sana la ilaalin meel wanaagsan uu fariisto iyo meel nadiif uu fariisto aan loo yeelin manhajkuna uusan saxnayn oo buuqii iyo curriculumkii dadka yaqaan luqadaas iyo scheme of workii hawshii sidii loo gelayay iyo adigu arrimo technicality u baahan oo dadka waxaas dhiga yaqaanaan hawlahaas haddaanay saxnayn waxbarashadu socon mayso sidoo kale waxa isna halkaas ka hadlay Xasan Farmaajo oo kamid ah qurbo joogti laga casuumay kulankan xafladeed waxa uu isna sheegay isla markaana tibaaxay in farq weyn uu u dhaxeeyo carruurta ku nool dalka dibadiisa iyo kuwa iminka wax ka barta dalka gudihiisa taasoo uu ku tilmaamay in maskax ahaan iyo dadaal ahaan intaba ay ku kala duwan yihiin qaar ka mid ah ardaydii maanta ayaa soo bandhigay halkudhigyo ay ka mid yihiin lecture iyo nashiidooyin ay ku akhrinayaan luqadaha qalaad sida afka Ingiriiska Carabiga iyo Sawaaxiliga strong and healthy are dying. Money lying graves, covered with mosquitoes, never to work again. I is the killer, I is the destroyer. Class 8 boys and girls, like a strong army, stand tall and shout, healthy. inta badan wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa dhiirigelinta aasaaska wax ka qabashada iyo caawinada heerka tayada waxbarashada dhalinta Soomaaliyeed waxa si weyn uga qayb qaadanayay lafdhabarna u ahaa isla markaana dardargeliyay jaaliyadaha iyo qurbo joogta ku nool dalka dibadiisa si ay u badbaadiyaan maskaxda inta hartay dhalinta Soomaaliyeed ee la koosatay burburka iyo dawlad la'aanta laga dhaxlay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay waxbarasho la'aantu waxaana marka laga hadlayo waxbarashadu inta badan ay la dirirtaa jahliga iyo mugdiga hadii dadka ama bi'adu aysan haysan waxbarashada waxay noqonayaan kuwa ku dhaca dabka madowga iyo mugdiga jahilnimadu ay leedahay waxaana maskaxda dhalinta Soomaaliyeed ha yaraadaan ama ha weynaadaan lagu badbaadin karaa iskaashiga in la helo waxbarasho tayeysan oo si weyn la iskaga kaashado Maal Xasan Diini TV-ga caalamiga Universal Caawad Waaq